iyadoo ay dhawaanahanba shacabka magaalada Berberi ay aad u hadalhayeen koox iskaraableey oo farabaas ku haya birihii xadiidka ahaa ee yaalay warshada sibidhka ee magaalada Berbera kuwaas oo ka ganacsada biraha iskaraabka una iibgeeya dalalka aynu jaarka nahay sida wadanka Itoobiya warshadaasi sibidhka oo ay yaalaan biraha iskaraab oo aad u tiro badan iyo qalab mashiin qaali ah waxaana booqasho aanu saaka ku tagnay goobtaasi la kulanay dadka ku dhaqan deegaankaasi ee u dhow warshada sibidhka iyo saddex nin oo iyagu ah ilaalada warshadaasi waxayna nooga warbixiyeen kooxdani boobka cad ku haysa biraha iskaraabka ee warshada sibidhka ee magaalada Berbera steedi waashmaan halkaas oo nahay marka saddex bilood baa qolan iskaraabka loo saansaxay aanu eeginay gureynaysa magaalada anagu oo marka maamulka iyo agaasimuhu ay nagu yiraahdeen waxba idin keenayaan hadda magaranaysa marka waxa dhacday saddex bilood markii nu eeginay ee halka waxba looga soo muuqan waayeen marka xagga loo soo wadaarteen guryaha fuuleen waan ku qaylinay nimankii anagoo la murmayno kuma jirin caynka magaranaysa qoladeedii waashmaanadaha marka qoladii hore qaybta hore la siiyay waa iyagii saasaan ula muranaan ugu qaylina gaariga uu gudoomiyuhu sheegayo iyaga rabtay gaari koob iyo 30 tan ka rabtay halkan ma garanaysa qoladii iskaraabka hore la siiyay ee agaasimaana wada socdeen ka rabtay shacayb iyo kulaba waxa lagu yiraahdeen baaqiga ku haray xaab hada waashmaanatihiin anagu intaas ma nugu gaariga saaka markaa meesha wala soo fasaxana lagu yiro gobolka uu ka imaano warmahay yaa warqad sitay markaa idin keenay mar labaad idinkii baa sitay amar hore qabtay barsaabkii ku-xigeenkii gobolka kii hantiilaha baa sitay yaa abdicasale masha hadiyahan baa candamida ka baxaya annagu halkan naalo hadi waxaan ku duleedka naalo iyo hadi ma sanu dul cuneen ay rarayaan waxaan ku mar walba waxaan ka codsanaa si deegaan wax noola qabto meeshan wada sidii hore lagu soo celiyo yaa raraya يا رايا واحد نبي بقى بحي أنا يا رايا ما إذا رسم ورمان كان أنا وتحصل وواحد حاجات دمرت كساعته تنوضي عركة يسوع صاري من مركب أيام حبنا السرادة ده أنت أصلا ما دين هرميجن حتى كترولك تشوفين أنا كترولك تشوفين يا كنت جاي كوي تشوفين دي عدوي من القوي دي يا تليا قيبت بوليس قبل كصاحل كاشال عبد علي حيد يعيد مديس ayaa heegan iyo hawlgal ballaaran ka sameeyay arintani waxaana ku soo qabteen gaari markaasi loogu dhex tagay warshada kaas oo lagu guriyay birays karaab ah oo la jarjaray waxaana ciidamada bilayska ee gobolka saaxil ay gabi ahaanba joojiyeen in goobtaasi cid dambe ay wax ka gurato tani inta laga hubinayo arintani halka ay kooxdani iskaraableydaahi ee ka ganacsata biraha iskaraabka ay ku dacwoonayaan inay warqad fasaxa ka siitaan gudoomiyaha gobolka saaxil Fahmi Cabdi Bidaar muddo dhaxow ma taqaanaay gudoomiyaha gobolku uu hawl ku maqnaa Hargeysa ayaa waxa dhacday annaga iyo gudoomiye ku-xigeenka gobolka ayaa waxaan tagnay warshada halkaas oo aan ku soo aragnay scrap go'an oo ma taqaanaay dabadeetan halka waxaan isla garanay inaan ahayn area-dii la siiyay dadka scrap-ka laga guranayay ee xadgudub ay tahay sida awgeed annagu waanu soo joojinay si ma taqaanaay arinta loo hubiyo cidda ma taqaanaay ka mas'uulka ah arintaas iyadoo halka noo taagan kulliba annagu awaamiirta waxaanu ka qaadanaa gobolkan inaanu la shaqeynaa waa nagu waajib qoraalada ay noo soo qoraana inaanu fulnaa waa waajib arinta hore ee ma taqaanaay qolada hore shirkadda la soo siiyay de waxa weeye sharcigeedii iyo qoraalkeedii waxa noo soo gudbiyay gudoomiyaha gobolka sidii baana loogu ma taqaanaay loo fuliyay hase yeeshee arintani waa arin ma taqaanaay dhex ka soo baxday bay ahayd arintaasina annaga iyo gudoomiye ku-xigeenkuba waanu soo joojinay hase yeeshee xalayta warqad baa lay keenay warqadaana waxa weeye gudoomiyaha gobolka ayaa ma taqaanaay noo soo gudbiyay oo leh ma taqaanaay nin Cabdi Casal la yiraahdo haloo sii daayay iskaraabkiisa halka ka daadsan gudoomiyaha gobolka Saaxir Fahmi Cabdi Bidaar oo xogahaasi dheer kadib qaar kamid ah warfidiyeenada gobolka Saaxil ay ku booqdeen xafiiskiisa magaalada Berbera waxaana uu gudoomiye Fahmi iska fogeeyay inuu isagu kooxdaasi u fasaxay biraha iskaraabka ee warshada sibidhka ee magaalada Berbera waxaana hadaladiisii kamid ahaa ninkan magaciisa
ninkana waa ninka loogu tegay warshada shamiitada ka soo qaranaya عبد عصا عبد عصا مقول سوق شيء ونك اللي ما هو نيك اللي يجي شكلك كم معه لكن هو نيك كيبيان يو شنو يلا باتن تاسو سكورز كمان صح waxa iyagu iibiyeen ka iibiyeen ma hayrayahan laakiin se waxaan xog dibadda koob iyo soddon kan baa loo ah shalay waa tagay wixii ka soo baxay waa soo askarta controlkan waa tagay oo runtii uma yaqaan waxa ku qaar baan labo jaqafiyo oo badiyo soo qoranayaan waa garanay oo awal buu iska dacmisanay ويعني حكاية يدي وبقول يدو لا تيجي خالد حسن خرش بولشة تي في مقالة بربراء.